Dhisidda Burj Khalifa kaliya dunida uguma dhigna inuu noqdo dhismaha ugu dheer caalamka, sidoo kale waxa uu astaan u yahay awoodda aadamaha iyo fikradihiisa hal-abuurka iyo sancooyinka cajiibka ah ee sida saynisku u yahay waxa ugu weyn ee maanta aadamuhu ku tiirsan yahay. Waxaan halkan ku soo koobayaa dhowr iskoor oo dhismahaas cajiibka ah dunida u diiwaangelisay oo ilaa iyo hadda aan la wadaagin. Intaanan muuqaalka u gudagelin, like saar fiidiyowgan, wuxuu naga saacidi karaa YouTube-ka inuu dad badan gaarsiiyo. Magaceyguna waa Cabbaas Mustafa. Burj Khalifa waa dhismaha ugu dheer dunida oo gaaraya 828 mitir oo dherer ahaan ah tallest building. Sidoo kale waa dhismaha ugu dheer ee iskiis u taagan oo aan wax kale ku tiirsaneyn dunida, tallest free-standing structure. Si la mid ah waa dhismaha ama sancaddii ugu dheereed ee abid basharku hindhiso inta la og yahay taariikhda. Waxaa kaloo u diiwaangashan inuu leeyahay tirada ugu badan ee dabaqyo ah ee dhismo uu leeyahay dunida, 163 dabaq. Si la mid ah waa dhismaha leh dabaqa ugu sarreeya dunida ee dad degan yihiin. Waxaa kaloo uu leeyahay meesha ugu sarreysa dunida ee dad intay istaagaan dhulka ka soo eegaan highest observation deck. Sidoo kale waa dhismaha leh wiishka elevator jara masaafada ugu dheer ee socdaal oo kor ah dunida. Si la mid ah wiishka shaqeeya ee ugu dheer dunida ayuu leeyahay. Xaqiiqooyinka kale ee Burj Khalifa leeyahay waxaa ka mid in agabka lagu dhisay dhismahan sida shubka lagu dhisay oo gaaraya 110,000 oo tan oo u dhiganta 100,000 oo madoori wax ka badan. Si la mid ah almuuniyamta ku daaran dhismaha ee lagu nashqadeeyay waxay culeyskeedu guud u dhigmaa 5 diyaaradood oo ah nooca Airbus A380 oo ah diyaaradda ugu weyn ee rakaab qaada dunida. Dhererkiisa oo ah 828 mitir ayaa ka dhigaya mid aad u dheer oo ka dhex muuqda guud ahaan magaalada oo dhaco ee Dubai iyo inta ku hareeraysan. Waxa uu ka dheer yahay 3 jeer birta dheer ee Paris Eiffel Tower. Mararka qaar dhererkiisa xad-dhaafka ah waxa uu hoos u eegayaa ceeryaamada iyo daruuraha oo mararka qaar ka hoos mara. Waxyaabaha cajiibka ah ee Burj Khalifa lagu tilmaamo ayaa ah in fiiqiisa ama muuqiisa laga arki karo masaafo u jirta meesha uu ku yaal 95 kiiloomitir oo intii isku jiraan Hargeysa iyo Wajaale in ka badan, ama Muqdisho iyo Jowhar, taasoo ka dhigan in haddii Burj Khalifa ku ooli lahayd Muqdisho in laga arki lahaa fiiqiisa sare magaalada Jowhar. Sanad walba in ku dhow 50 milyan oo litir oo biyo ah ayuu Burj Khalifa u isticmaalaa dhirta ku taal hareerihiisa iyo biyaha ciyaara dancing water ee dhismahaasi uu leeyahay. Si la mid ah waxa uu leeyahay wiish aad u dheereeya oo halkii ilbiriqsi jara masaafo 10 mitir ah, taasoo ka dhigan in dabaqa 124aad uu 1 daqiiqo wax ka yar ku gaaro halkii mar. Dhisidiisa halkii maalin waxaa ka howlgalayay 12,000 oo shaqaale ah. Si loo dhammaystiro dhismihiisa cajiibka ah waxay qaadatay in la isticmaalo in ka badan 110,000 oo tan oo shub ah iyo 55,000 oo tan oo bir ah iyo 22 milyan oo saacadood oo ah 6 sano ee dhismuhu u socday. Dhismihiisu waxa uu leeyahay maqaaxi ku taal meesha ugu sarreysa dunida oo waxay dhacdaa dabaq 122. Ma jirto maqaaxi ka sarreysa dunida. Sidoo kale waa dabaqa leh barkadda dabaasha ee labaad ee ugu sarreysa dunida oo ku taala dabaqa 77. Haddii aad gudihiisa ku jirto waxaad arki kartaa qorax soo baxa 2 mar oo kala ah haddii aad joogto meesha ugu sarreyso ee dhulka laga daawado iyo dabaqa ugu hooseeya. Dhismahan January 2004 ayaa dhisidda lagu bilaabay waxaana la dhameeyay 2009 iyadoo la furay January 2010. Tani 2009 waa dhismaha ugu dheer dunida. Wuxuu iskoorkaas haystaa muddo 12 sano ah wuxuuna kala wareegay dhismaha Taipei 101 oo tan iyo 2004 ahaa
oo asna kala wareegay daaraha mataanaha ee Mareykanka. Waxaa iska leh shirkadda dhismaha Imaaraatiga ah Emaar, waxaana loogu magac daray Sheikh Khalifa oo ah madaxweynaha Imaaraadka. Lacagtu ku baxshay 1.5 bilyan. Waa astaan dunida aad ugu caan ah oo ka mid ah sancooyinka ugu cajiibsanaa ee basharku daah qaado. Burj Khalifa waxaa naqshadeeyay Adrian Smith oo ah naqshadeeyahanka ugu caansan dunida oo dhismayaasha ugu dhaadheer dunida naqshadeeyay. Waa Mareykan hadda gacanta ku haya dhismaha Jeddah Tower oo la filayaa inuu booska kala wareego Burj Khalifa iyo dhismaha asiga kala sii wareegi doono ee Azerbaijan Tower. Naqshadda Burj Khalifa waxaa laga metelay sida ubaxa loo yaqaano Spider Lily ama Hibiscus flower oo ah ubax sal adag leh. Waa goobta qaabisha dalxiisayaasha ugu badan dunida ee Dubai soo booqda. Sanad walba 2 milyan oo qof ayaa timaada dhismahan oo gaara dabaqa 124 iyadoo degada sare ka daawada Dubai.